بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. su-aashan odhanaysa khataraha waaweyn ee ku soo wajahan ubadkeenna ama mustaqbalka dhallinyaradeenna iyo xalka ama sida looga bixi karo, waa su-aalaan isleeyahay mara 20kii sannadood ee u dambeeyey haddaanay ka badnayn waa laga hadlayay, waanay muuqanaysay dhibaatooyinkaasi. hal la hadlee welina solution ama xal lama keenin. iminka u malayn maayo inaynu isweydiinayno dhibaatooyinka iyo khatarta ku soo wajahan ubadkeenna, waayo waynu ku jiraa. maaha khatar soo wajahan, waa khatar aynu la noollay markaynu nimi carruurteenu yaryarayd aynan weli mashkiladda taabanin baynu odhan jirnay khataraha soo wajahan. laakiin hadda xaqiiqada markaynu eegno, suuqa mukhadaraadka aad baynu ugu jiraa, xabsiyada aad baynu ugu jiraa, musixaadka caqliga meelahan dadka dhimarka aad baynu ugu jiraa. intaasi waa inta marar badan aynu moodno inaan gacanta lagu haynin. mararka qaarkoodna waxaan isleeyahay in aynu moodayno inaynu waxtarnaayana kasii fog. inaha jaamacaadka inooga baxay ee wadanadan wax ku bartay, qaybo ka mid iyagana iyagiyo diini way kala tageen, waayo systemka wadanada tan ka jira innagoo qura maaha, waa trendka Yurub u socota dhallinyaradeedu. ama systemka waxbarasho ha ahaado ama dadka dhigaya ha ahaadaan, trendka Yurub ay u socotaa waxa weeyaan da-yarta dhowr iyo 30 jir ka yari 70% bay tilmaamayaan inaanay ilaah rumaysnayn. aduu qiyaas umad la leeyahay over 70 ayaan waxba rumaysnayn da-dooda yari. marka inagu waxaynu nimi dhul dhisan oo dowladi ka jirto, oo system leh, oo nidaam waxbarasho leh, oo falsafo nololeed leh, oo qaanuun leh, oo iclaam leh, oo shaqaynaya. waxaanaynu nimi inagoo kala daadsan oo kala firirsan oo aan wada soconin, waan mustaqbalkana aragti ka lahayn. qof waliba meeluu dabada dhigo iyo meeluu nabad ka helo, hadday ka badatana wax la cunayo xoogsi uu ka helo ayuu raadcaynayay. inta badanna bini aadamku mushkiladda uu yaqaanaabuu xalka u raadiyaa. mushkiladda uu yaqaano ayuu xal u raadiyaa. mashaakilkeenu halkan ugu nimi maaha mashaakil xaggeennii ka jiray. xaggeennii mashaakil nooc kaleaba ka jiray. xaggeennii cid ilaahay diidani ma joogin, laakiin cid yaro faasiqowda waa joogtay. ilaahay lama dafiri jiray, laakiin qof dadka dilaa waa joogay. xaggeennii qof been sheegaa waa joogay. yacni dunuubta xaggaa taalla iyo ta xaggan taalla waa kala nooc. mashaakilkaad markaad xaggaa joogtay ka fakeraysa iyo kaad halkan ka fakeraysa waa kala nooc. inteena ugu badani waxaynu xal u raadinaynay nabad. cabsi badan baa taallay, nabad iyo xoogsi, shaqalaan labadaa inaynu ka baxno. laakiin waxaa laga yaabaa dadka qaarkii ama dad badani labadaasi uun inay u manage gareeyeen xal u heleen, laakiin beledii halkan taallay kumaynan talagelinba. markaynu soo soconnayna wax iskamaynan weydiinin, markayna qabsatayna waxba kamaynan odhanin. sidaa awgeed waxaynu ka luminay identity-gii, huwiyadii waa lunta. huwiyada ama identity-ga dadku uu leeyahay waa waxa uu dadka kale kaga soocan yahay. waxa ugu weyn laba shay, waa af iyo diin. waa labada shay ugu weyn ee bini aadamku ka dhigto maxay
identity uu ka dhigto labadiiba ama waaba sii gabaabsi ama waa sii lumayaan oo afkeennii uu ka sii baxayaa meesha innaga iyo ubadkeennii si fiican isuma afgaranno luqaday ku hadlaan iyo luqadaynu ku hadallaa isku mid maaha identitygii luqannimo ee soomaaliyeed way lumayeen waxaa kaloo sii lumaysa identitygii diineed muxuu u lumayaa adigu laba wax baad haysato kuu ilaaliyay identitygaaga diimeed koo waxaad timi adigoo mumayisa adigoo caqligaaga uu dhammaystiran yahay adigoo waxna xuma u yaqaana waxna sama u yaqaana adigoo waxa saxa iyo waxa qaldan kala yaqaana adoo valueska islaamku uu leeyahay rumaysan mararka qaarkood waa laga yaabaa shahwaatu nafsiga inaad ku dhacaysay مثلا qofka zinaysta wuxuu zinaysanay isagoo arkay inuu xuma samaynayo laakiin uu ma arkaynin wax fiican inay tahay wuxuu samaynayo dan value-gii ahaa inay zinadu xunta waad rumaysanayd walow kuba dhacba value-gaas waad rumaysanayd aduu marka hore waxaad timaa adigoo valueskaaga iyo qiyamkaaga iyo tasawurkaaga iyo caqaa'idaada iyo waxaad rumaysantahay kuu dhan yihiin waa mar labaad adigu indimaaj lamaad samaynin gaaladee waad ka soocanta intiina ugu badani shaqaad soo shaqaysaa waxaa laga yaabaa inta ugu badan 10 gaal inay wada shaqaysaan ama 10 kaana 5 shiya ka timi kow gaal ingiriisi iyo dadkan iyo fikraarta qabaan iyo waxa qabaan waxa laga yaabaa shaqada dhowr qof inaad isku aragtaa bas markaad ka soo rawaxdana ama masaajidka timaada ama maqaaxidii Soomaalida timaada xiriir kale idin kama dhaxeeyo marka adigu kow markii horena waad ilaashanayd markii labaadna meelaad ku gabato kalaad heshay oo Soomaalidii iyo masaajidkii iyo maqaaxidii iyo intaas socotay ilmahan isaga marka laba dhib baa wada haysta makiinadan ka warrami doono shiin soconaya aynu dhiibno ku daray oo waxbarasho leh oo culture leh oo dhaqan leh isagoo aan dhamaystirmin ayaynu nursery kaga bilownay ama school kaga bilownay dabeetana iyaga tababaray waa mar labaad adigu dadkan indimaaj kuma samayn lama noolaan isagu la nooliyay waa la asxaab waa la class waa la nooliyay waa la ciyaara waa isku xidhayin waa dadkan uu la nooliyay adigu si lama noolid really isagu waa nin ama waa gabadh ku dhex jirta ummadatan adigu sinaba waxuma wadaagtaan saacadka shaqada kala aamusantihiin aydan wax badan bay isweydiinin ayaa wada joogtaan inta kale isma aragtaan haddaba mashaakilka sawirkiisu waxba uma baahna baraaca badan iyo inaan ixsaa'iyaad akhriyo inkastoo laga yaabo dhan inay awareness ka samaynayso laakiin dhanka kale waxaan ka baqayaaba inay idin jebiso waa istiraadaan tan cidina badbaadi mayse ilaahay bay leeyihiin inta guriga sii fadhiisataan saa daraaddeed ixsaa'iyaadka badan waxba akhriyo mayno waa inta awareness keenaya inta nijabaysaan baa ka badan laakiin waxaan rabnaa inaan tilmaamno war hantida quraynu haysanaa waa dad bil aadan baa ugu hanti fiican waxay dhahdaan qoraacana oo Braziliana Paulo Coelho bay dhahdaan Paulo Coelho waa nimanka buugta ugu badan ee dunida la iibsada leh almost waxaan filayaa 150 million copies ka badan inay buugiska isku gaadhayaan 150 million wax ka badan waa the second man bay dhahdaan dunida ba saa wax u publish gareeya waa nin ahaan jiray waagii hore qoladan adabka wax tiriya heesaha iyo riwaayadaha iyo waxa sameeya markii dambana noqday qoraa novelladan iyo waxa la qoriyo waxa kan sameeya imagana United Nation ka abu malaawi yahay rajul salaamka dunida qisaskiisa waxa kamid ah qisa yar oo kooban shaka yar oo kooban buu qoray shakada kooban uu qoray wuxuu yiri oday baa jariidada akhrisanayay buu yiri dabeetana inaan yaro u dhalay ayaa mashquuliyay markuu sidaada rugba ku yarba su'aal weydiiyo mashquuliyo kan yar iska mashquuli buu isnaysiin marka intuu jariidadii rogay ayuu xaashimaabka dunidu ku sawiray intuu soo jeexay ayuu googooyay
markaasuu intuu u dhiibay buu yidhi halkaa fadhiiso dunidii dib isugu rakib maabkii dunida samee wuxuu isla haddee kaa yar dirtay kugu soo noqon maayo qisada waxay sheegaysaa inaan 15 daqiiqaba gaadhaynin markuu kii yara maqnaa ayuu soo noqday isagoo wada bahashi markaasuu yidhi waa tan waan sameeyey odaygu su-aal buu weydiiyey war ma hooyadaabaa kuu dhigtay jugraafiga buu ku yidhi markaasuu yidhi may hooyo jugraafiga ima dhigto dad saad u samaysay buu yidhi waraaqdan aad ii dhiibtay buu yidhi xaggan maabku ka sawira xaggeeda kale qof baa ku sawiraa qofkii un baa isku hagaajiyey buu yidhi gacanta iyo lugta iyo adinka iyo isugee dee dunidina way isku hagaagtay markaan qofki isku hagaajiyey ha dabeetana weedhii inanka yar bay ka dhigeen weedh xikmad ah waasaa maahmaahaan soomaalidu ku baxaan oo kale weedhaasaa waxay tahay cindamaa acadtu binaa alinsaan acadtu binaa alcaalam buu yidhi markii aan qofkii bini aadamka ha dhisay sawirkiisii ayaa adduunkiina ii dhismay waxay leeyihin ilmaha yari wuu iska yidhiye that's the real world noloshu waa taa qofka bini aadamka marka la dhiso ayay dunidu dhisantaa qofka bini aadamkii markuu dumana nolosha iyo duniduba way duntaa qofka bini aadamka caqiidadiisa mabaadi'diisa valueskiisa xorriyadiisa cadaaladii waxaasi markay dhismaanna adduunku wuu dhismaa bay yidhaahdaan markay dumaanna wuu dumaa walidaalika baa iminka aqoon-yahanada waaweyneye reer galbeedku aada u qaylinaya ay leeyihin xadaaradeenni way dumaysaa maaha cid ka xoog badana inay timi waxay leeyihin trendkaynu hayno wajahadaynu u jeedno ayaa ah meelay wax ku dumayaan waddanna waaweynoo dunida ka midaba waxay tilmaamaan in wax kale ma haysanay bini aadam baanu haysanaa markaanu bini aadamka maal gashanay ayaanu nolosha adduunyo dhan bedelay yani waddankan yar ay yidhahdaan jaban wuxuu leeyahy qofka bini aadamkaanu maal gashanay dabeetana noloshaanu bedelay sidaa awgeed culammada ka waranta sociology bulsho kuwa ka warrama psychology kuwa ka warrama dhaqaale iqtisaad economics kuwa ka warrama siyaasa kuwa ka warrama tarbiya iyo educational policy waxoo dhamme waxay yidhaahdaan one thing bay ku salaysantay bay yidhahdeen philosophy qofka bini aadamka maxaa u cuntama maxaa u fiican school of thoughtska kala gedisani waxay sifaynayaan qofka bini aadamka wixii ay u arkayeen iyagu inuu u fiican yahay dabeetana politicalka iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo ijtimaaca iyo bulshada iyo waxoo dhamme waxay ku salaysan tahay qofkan bini aadamka maxaa u fiican see loo horumariyaa saddex aragtiyoodoo kooban bay dunidoo dhammi rumaysantay markaa qola u aragta qofka bini aadamku inuu shaydaan yahay imtixaan inuu yahay asalkiisu inuu shar yahay markaa systemka iyo dhaqaalaha iyo waxoo dhamme inay ku salaysnaadaan qofkan in la xakameeyo qofkan in la rifo qofkan in la controlo how much you do that ayaad nolosha horumaraysa bay qabaan waa maalan even philosophyga christianity baa ka mid ah oo christianitygu wuxuu rumaysan yahay in lagu dhashay khati'a qof walba eedii nebi maxamed nebi aadam inay dhinac ka saaran tahay oo dadkao dhammi dembiilayaal yihiin ay u baahan yihiin salvation iyo wixii rifi lahaa iyo qurunka ka rogi lahaa qayb kaloo ka mid waxay rumaysan yihiin insaanku inuu khayr yahay wanaag inuu yahay wax yararoo dulduula ka dhaca laakiin waa wanaag waa filosofiyadan maanta Jack Russell iyo nimankaasoo dhammi political issueskooda waxay ku saleeyeen asalka insaanku inuu yahay mid khayra qola saddexaad oo materialistka u badani waxay rumaysan yihiin insaanku inuu yahay safxa baydaa waa beige madhan bay leeyihin culture-kaa foom gareeya waxba kuma jiraan isaga islaamku wuxuu rumaysan yahay qofka bini aadamkii xagga khayrka inuu badan yahay laakiin nawaasic shar oo shahwaat nafsiga iyo waxa kan iyo nawaasic alkhayr bay inay ku jiraan in hadaynaahu najdayn inuu yahay labada jid bay inuu qaadi karo laakiin asalku inuu yahay fitra saliima walaqad khalaqna al-insana في أحسن التقويم بإلهي بني آدم كو حنو أبو الري أحسن التقويم يعني وحي لين قفك بني آدم كيف فطرة دي سهدين لي سود دايو فطرة أبو ركيسة يعني وحي تشربي إلينا قومها in philosophy وحي أكسية مثل اللي هذا وحيابا أمبروف سكو باهنين
qofka bini aadamka wax naturally u rumaysan yahay مثلا haddaan qalinkaa qaado uma baahna daliil inaan caagada biyaa qaadi karo bimujarad inaan qalinkaa qaaday baan waxaan garanayaa maxay inaan bimujarad inaan caagadaa qaaday biyaa baan waxaan ku garan karaa maxay inaan qalinkaana qaadi karo ila kii weynaa baan sidaa kaya uma baahna bay yidhahdaan daliil science-ka iyo philosophy-ga iyo waxaan oo dhammi wuxuu ku salaysan yahay waxa ay axioms-ka yidhaahdaan si kale haddaanu tilmaamo ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa abuurkeennii in ballan laynaga qaaday waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim alastu birabbikum qaaluu bala shahidna rabbigiin ma ahay inuu rabbi weydiiyey ama se science-ka dunida calaamadaha ka muuqda inay sheegayaan inuu ilaahay rabbigood yahay سأوجد بقى إلهي وحكو تلمامة فاقم وجهك للدين الحنيف فاقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله دين تقوم من حنيف كا الشرك كدر وافق سن فطرة قفك بني آدم كا كقومي وجهك قبل تلمامة هذا واحد لنا هاي إنسان كوحو أولما بفطرته ما حمائه نوازع دا خارجية وحن environment كدبدا وحا كاقا إيمانية أي أنت بدلومية ولذلك النبي يقول حليه إلهي بأوحيلي إني خلقت عبادي حنفاء حنابوري الضمه يقول يقاقوا من لما أنتوا وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم الشياطين تاويرارتي أما شياطين الإنس هالنقضان والشياطين الجن هالنقضان دبتنا يقى الدين توديك كحيي وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا دبو دندن إنو شوغنو waxaa jooga dad trained ah dad la tababaray oo loo tababaray waxaa loo dhiibay inay qofka bini aadamka ka dhaadhicin karaan dadkaasi ha noqdo wasaaradda waxbarashada ilaa tacliim sare ha noqdo iclaanaadka iyo iclaamka iyo aflaamta iyo waxaan dadka sameeya ha noqdo adabka iyo riwaayadaha iyo waxa kan dadka qora ha noqdo waxaasoo dadii waxay u train garaysan yihiin inay qofka bini aadamka madaxiisa gadiyi karaan ولذلك in western markaynu joogno waxa la dhahaa sinaacatu ra'yi aragtida waa la sameeyaa bay leeyihiin siyaasiyiintu bulshada xaggii la doonaa baa loo jeediyaa waa la sameeyaa haddaba dunidu waxay isku waafaqsan tahay tacliintu waxbarashadu inay tahay meelaha ugu muhiimsan ee isbeddelku ka dhaco waddan walba siyaasiyiinta joogaa waxay jecel yihiin bulshadoodu inay homogeneous group noqoto mutajaanis dad dhan wada jeeda iyadoo diversity tiro badan uu ka dhex jiro kala gedisnaan badan ay jirto ayaa haddana waxa la isku dayayaa bulshadaas inay si qura wax u wada aragto si qura wada noolaan karto wada socon karto bulshada ay homogeneous ka tahay bay isku xidhnaanshiheedu ku xoogan yihiin isla markaa maamulideeduna ay ka fududahay markastoo dadka aragtidiisu isku dhadhow yahay in la maamulo waa wax fudud markastoo dadka aragtidiisu aad u kala durugsan tahayna in la isku hayo la maamulaa waa wax adag haddaba waxay yidhaahdaan waxbarashadu waa meesha dadka isku aragtida lagaga dhigo compulsory education bay waddanadani samaysteen dadka waddanka degan oo dhami 10 sano ama 9 sannadood oo waxbarasho waa inaad qasab ku martaa 9 sano ama 10 sano waxa lagu barayaa bulshadan sida loola noolaado hadday afkooda tay hadday dhaqankooda tay hadday valueskooda tay hadday waxa qiimeynayaan tahay bulshadan waddan kale siday u wada noolaan lahayd baa la baraa wixii ka sii dambeeya tacliimina horumarka waddanka buu ka fakaraya xayaat kariima qofku sidii uu heli lahaa ولذلك ayaa isticmaalku markuu qabsaday waddanadii muslimiinta oo kale India waddan weyn oo islaamiya ahaan jirtay boqortooyin waaweyn oo islaamiyana ka jiri jiray Ingiriiska u yimi ayar buu galay
ingiriisku waddanka xoog kuma qabsanin laakiin markii hore meel yaroo aan shaah ka beertay siiya buu yidhi meel bay siiyeenoo shaah buu beertayo markii dambe wuxuu yidhi waa beertii waa layga weerweerarayaa ee waxoogaa huba ha lay ogolaado inaan la soo dogo beerta ku ilaashado security baan u baahnay